she thought it's the husband because the brother used to sneak in at night. She thought it was her husband. Ayada waxay u malayn jirtay waa ninkeeda. Because her brother used to sneak in at night. Sababtoo walaalkeed habeenkii ayuu soo guuran jiray amba wuu soo gaatami jiray. During the day, he'll bring me food. I sing in my house, in the room. Every day he used to bring me food. Maalin kasta wuxuu ii keeni jiray cunto. I sneak it in my room. Qolkeeya ayaan ku dhex qarin jiray. Room waxaa laga wadaa qolka aad degan tahay. The madam thought it's the husband. So the madam thought it's the husband. Naagta aan u shaqeeyo waxay u malayn jirtay ninkeeda waaye. Madam waxay u yeeraan qofka ay u shaqeeyaan. Husband waxaa laga wadaa xaasle. A woman who left her home to build a better life abroad. A woman who left her home. Naag oo gurigeeda kasoo tagtay ama xaafadeeda. To live a life abroad. See kurbaha ugu soo noolaato. Erayga abroad waxaa laga wadaa wadamaha kurbaha. They took their turns and raped me. My son was still there. They took their turns and raped me. Midba waqtigiisoo qaatay wayna I kufsadeen. My son was still there. Wiilkayga weli wuu joogay. She was miserable out there, and the people around her only added to her suffering. She was so miserable out there. Ayada aad ayay u murgaysnayd. And the people around her only added to her suffering. Iyo dadka ka ag dhawaay murugada iyo dhibka way uga sii dareen kaliya. On a rare good day, she finally managed to escape that cruel country. On a rare good day, halkoo maalin ay nasiib heshay. Rare waxaa laga wadaa badanaa ma dhacdo halkoo mar kaliya. She finally managed to escape that cruel country. Ugu dambeyn way ku nasiibsatay inay ka baxsato wadankii xumaa. But the country took her son from her. Yes, you heard that right. But the country took her son away from her. Laakiinse wadanka waxay ka qaateen canugeeda. She had to leave her son behind in exchange for her freedom. She had to leave her son behind. Waxay ku qasbaneed inay wiilkeeda kasoo tagto in exchange for her freedom. Say ugu bedelato xorriyadeeda. Exchange waxaa laga wadaa wixii la kala bedelanayo. Son waxaa laga wadaa wiil. Now that she can finally breathe, her mind is still trapped. Now that she can finally breathe. Xilligan hadda la joogo way neefsan kartaa. Breathe waxaa laga wadaa neefso. Way neefsan kartaa markuu leeyahay wuxuu ka wadaa way yara nafiste. Laakiinse neefsiga caafimaad ahaan ma ka wado. Nafis ayuu ka wadaa. Her mind is still trapped. Maskaxiyan ma joogto ama maskaxdeeda way maqan tahay. Haunted by thoughts of her child, a son who wasn't born in the usual way. Haunted by the thoughts of her child. Waxaa mar walbo cabsi galiyo markay canugeeda ka fikirto. A son who wasn't born
the usual way. Wiilka sida caadiga ahaan oo loo dhalo umaysan dhalin. Ereyga usual waxaa laga wadaa sida caadiga. Once you discover the truth about what happened to this woman, Once you discover the truth, markii aad ogaato sida runta ay wax u dhacayn about what happened to this woman oo wixii ku dhacay islaantan, you won't be able to see the world the same way again. you won't be able to see the world the same way again. Dunida sida hore aad u arki jirtay uma arkaysid. And you're healthy. Baby boy, I hope you're healthy where you are. Baby boy, I hope you are healthy where you are. Canugayga yaraa, waxaan rajaynaa inaad caafimaad qabto meel alla meeshaad joogto. Healthy waxaa laga wadaa caafimaad. Trust me, this video won't be easy to watch. Trust me, this video won't be easy to watch. I aamin, muuqaalkan muuqaal si sahlan ku daawan karto ma ahin. This story will break your heart. This story will break your heart. Qisadan qalbigaaga way jabinaysaa. But we need to know what's really happening out there. But we need to know what is really happening out there. Laakiinse waan ku qasbanaana inaan ogaano wixii banaanka ka dhaco. Assalaamu calaykum asxaabta, soo dhawaada fadlan muuqaalkan like ii saara. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay qiso yar aan af Soomaali ku fasirayo. Hi, my name's Azam Wambui, or English name's Faith Wambui Katuo. My name is Faith. Magacaygu waa Faith. I'm 37 years, almost 37 years. I'm Kenyan. I am almost 37 years old. Waxaan ku dhowahay 37 sano. I'm Kenyan. Waxaan ahay Kenyati. Back in 2014, I got the opportunity to go to Saudi. Back in 2014, xilliga lasoo dhaafay sanadka 2014, I got an opportunity to go to Saudi. Waxaan helay fursad aan ku aado Sacuudiga. I traveled with a rogue agent, apparently. I traveled with the wrong agency. Waxaan lasoo safray agency qaldan. Ereyga wrong waxaa laga wadaa wixii qaldan. Muuqaalkan si qaldan ay usoo qoreen. Wrong wuxuu ka bilaawdaa wa. So when I went to Saudi, I was naive. So when I went to Saudi, I was naive. Saudi markaan aaday waxaan ahaa qof aan waxba ogeyn. I didn't understand the rules and sharias of the area. I didn't understand the rules of the area. Meeshaan joogay xeerkiisa maan fahansaneyn markii hore. I didn't know what they expect of me. I didn't know what they expected of me. Aniga maan ogeyn waxay ayaga iga rabeen. Because I'd not gone for any training. Because I'm not good for any training. Sababtoo ah aniga waxba ma soo baran. So I went and I got my first house with a very good boss. So I went and got my first house. Marka waan baxay waxaana helay gurigayga koowaad. Gurigayga waan helay markaad leedahay guri ay iibsato ma ahan, laakiinse waxay ka wadaa Sacuudiga marka la joogo guriyaasha waa laga shaqeeyaa, iyada shaqaale ahaan ayay guri u heshay.
with a very good boss. Waxaan u shaqaynayay qof aad u fiicnay. Ereyga boss waxaa lagu tilmaamaa dadka loo shaqeeyo badanaa. The male boss was a very good person. The male boss was a very good person. Booska midka ragga ahay aad buu u fiicnay. Male waxaa lagu tilmaamaa ninka ragga. Female dumarka. And the woman, I will not say she was bad. And the woman, I will not say she was a bad person. Iyo naagta laakiinse qof xun ma ku tilmaami lahayn. Woman waxaa laga wadaa naag. Man waxaa laga wadaa nin. She was only bad because she was denying me food. She was only bad because she was denying to give me food. Marka kaliya ee xumeed waa markii ay raashin ii diidi jirtay. I was really hungry, working so many hours when I'm really hungry. I was really hungry. Aad baa gaajo ii haysay. Working so many hours when I'm really hungry. Intaasoo saacadood baan shaqaynaya anoo weliba gaajaysan. So one time, the brother to the madam came to visit us and stayed with us for a very long time. So one day the madam's brother came to visit us. Maalin waxaa jirtay naagta aan u shaqaynayay walaalkeed ayaana soo booqday. And stayed with us for a very long time. Iyo waqti dheer ayuu nala joogay. We became friends. We became friends. Waxaan noqonay saaxiibo. How? He used to offer me food. How? He used to offer me food. Sidee? Wuxuu isii jiray raashin. You know, when you're hungry and you're working, it's not easy at all. You know, when you are hungry and you are working, it is not easy. Ma ogtahay markaa gaajo ku hayso iyo aad shaqaynayso hawl fudud ma ahan. You cannot work. You cannot work. You cannot work. Ma shaqayn karaysid. So when he offered me to give me some food, So when he offered to give me some food, markii oo asiga doortay inuu aniga raashin isiiyo for some sexual advances, hunger could have killed me. inuu iga faa'iidaysto kali ahaan ayuu cunto ii siiyey ayay tiri. Because hunger could have killed me. Sababtoo ah gaajo ayaan u dhima gaaray. So I decided to say yes. So I decided to say yes. Marka waxaan go'aansaday inaan ka aqbalo. We continued for some time until I got pregnant. We continued for some time until I fell pregnant. In muddo ayaa wadnay ilaa aan uur ka qaaday. Things turned worse. Things turned worse. Xaaladaha way sii adkaadeen. One day madam came and told me, Zamzam, Faith. One day the madam came and told me, Faith. Maalin waxaa ii timid naagta aan u shaqeeyo waxay ii tiri Faith. Faith magaceeda ayaa la yiraa, magaceeda ay ku wacday. But then I was Faith, I was not Zamzam. But then I was Faith, not Zamzam. Xilligaas waxaa laygu wici jiray Faith, not Zamzam, ma ahan Zamzam. Laga yaabo inay soo hanuuntay oo magacii iska bedeshay, laakiin sidaas ma xaqiijin karo. You are pregnant. I didn't expect that because
You are pregnant. Uur ayaad leedahay. I didn't expect that. Taas maan filanaynin. Actually, I don't know why I didn't expect that. Actually, I didn't know why I didn't expect that. Laakiinse waan ogaan la'ahaa waxaan taas u filan waaye. When they said they're going to call the police and the sisters, So, when they said they are going to call the police and the sisters, marka waxay dhaheen waxay u wacayaan askarta iyo walaalaha. the brother told me they're going to kill me. I ran away. The brother told me they are going to kill me. Walaalkeed wuxuu yiri kow ayaa laga siinaa. So he gave me 200 reals. So he gave me 200 reals. Marka wuxuu i siiyey 200 oo riyaal lacagta Sacuudiga. And showed me the back door where I'm supposed to jump. And I jumped. I really jumped. And he showed me the back door where I'm supposed to jump. Marka wuxuu i tusay albaabka gadaal meesha aan ka baxsan lahaa. And I jumped. I really jumped. Iyo waan ka booday. Si run ahaan ayaan uga booday albaabka. And ran away. And that is where my misery started. And I ran away. Iyo waan orday, waan baxsaday. And that is where my misery has started. Meeshaas ayay iga bilaabatay nolosha adag. I was pregnant almost 4 months. I was pregnant almost 4 months. Xilligaas uurkaygu wuxuu ahaa 4 bilood. With nowhere to stay in a foreign country and outside. With nowhere to stay in a foreign country outside. Anoo meel haysan aan dego weliba wadan kurbaa banaankiisa. I looked for shelter at a supermarket where the security person was a Kenyan. I looked for a shelter at a supermarket. Meel aan dego waxaan ka raadsaday supermarketka agtiisa. Supermarket intaan ogeyn waxaa la dhahaa dukaan raashin laga soo adeegto. Where the security person was a Kenyan. Meesha waardiyaha wuxuu ahaa Kenyati. He helped me out, took me to another Kenyan lady called Dalalas. He helped me out. Ninka wuu i caawiyey. He took me to another Kenyan lady called Dalalas. Wuxuu ii geynaa kale oo Kenyati. Magaceed waxaa la dhahaa Dalalas. Casharkeena maanta intaasay ku egyahay. Qisada waa qiso aad u dhir badan. Hadda qaybta koowaad ayaan soo geliyay. Qaybta labaad insha Allah mar dhowaan